dalxiisku way la dhaqaalo dalal fara badan oo caalamka ay ka faa'iideystaan kuna tiirsan yahay dhaqaalahooda guud iyadoo istaraatiijiyadda horumarneed ee dalxiiska dalka laga duulayo ayaa waxaa wadan ahaan ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu dibadda u taagay sanadku markuu ahaa 2011 tirsiga dalka qorshe cad oo u sahlaya in la horumariyo goobaha dalxiiska dalka gudahan ku yaala waxaana lagu dhawaaqay lana shaaciyay barnaamijkii loogu magac daray Gabata la Shagar iyadoo la dhisay goobo dalxiiska ku habboon sida Intoto Park, Maskal Square iyo Andinet Park iyo sidoo kale dib casriyeynta lagu sameeyay madaxtooyada dalka looga arrimiyo waxaana ku sii xigay barnaamijkii Gabata la Shagar oo la dhisay goobaha dalxiiska ee Wanji, Koisha, Halala Kela, Sof Umar, Shabelle Resort iyo sidoo kale goobo kale oo hadda socda iyadoo deegaanka Soomaalida markii ugu horeysay la dhagax dhigay goob dalxiis iyo tamashlaynta ku habboon oo kaalin fiican ka ciyaarta dadaalka loogu jiro horumarinta dalxiiska deegaanka Soomaalidu waxa uu leeyahay goobo badan oo dalxiiska ku wacan kuwaas oo isugu jira goobo dabiici ah seerooyinka maroodiga iyo duurjoog ku nool kaymaha kala duwan ee ku yaala deegaanka iyo sidoo kale kaymo dhareed dhismayaal qadiimiya iyo wabiyaal burqamaya sanadkoo idil degmada Shabelle waxay ka mid tahay 12 degmo ee gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida degmadu waxay ku taalaa jihada koonfureed ee Jigjiga waxayna magaalada madaxda caasimadda Jigjiga u jirtaa 23 kilomitir masaafadan iyadoo ay degmadani ka kooban tahay 25 center iyo 177 tuulo hoosaad haddaba dhalinyarada iyo bulshada magaalada Jigjiga ayaa aragtidooda ka dhiibtay faa'iidada iyo ahmiyadda guud ay u leedahay goobtan dalxiis ee Shabelle oo hadda dhismaheedu meel fiican marayo waxaan isleeyahay waa faa'iido weyn wax naga maqnaa waa koboc naga maqnaa maxay ahaydey waxyaalo badan oo aynan haysanin oo noo soo kordhay weeyaan isleeyahay 2 3 iyo 4 iyo 5 in laga dhigo la sii badiyo iyo intii la kari karaba cidii wax qaban kartaba in lagu sii kordhiyo aad iyo aad aan u bogaadinay كل يوحنا سلا هاي هذي فهم كدتك وأنا هرت فهم سيها وحن وياهي واحد لغة شديدة وشديدة وفهم سيها دتك مركب يوحنا سلا هاي فائدة أدي أضمن بين الله هاي كل جيم بمعناها هذي كان هان كل قواعد قالة ونظامية بدن وحياة بدن إنك مقنع ويجي مركب واحد بدي ملك اللي أدي له ملك اللي رهت الله هالكاجل وكانه ويا نسليه مركب ساينا نفهمنا actually aan deegaanka in badan baan ka maqnaa waxaan ahay qurbo joogta deegaankii waxaan ku dhahay intuu nabadda ka dhacay soo xarootay baaqa nabadda lagu baaqay soo galay wax badan ayaa isbedelaan isleeyahay deegaanka xukuumadda hore xukuumaddan xilli waxaa jirta aan awoodin xitaa inaan soo galno deegaanka oo aan awood u lahayn inaan soo galno dalkanaga laakiin hadda alxamdulilah meeshaan doonaan maranaa wuxuu soo kordhinayaa bulshadu markay tagto inay jiw ku soo qaadato inay ma garanaysaa qofku farxad ka helo inuu ma garanaysaa moraalkiisu ku dhismo goobta dalxiiska marka waa waxyaalo badan dhalinyarada waxay u leedahay ma garanaysaa waa shaqo abuur bay u leedahay dhaqaalahaan waxaanu ka helaynaa waxa weeye dadka dalxiisayaasha markay yimaadaan dhaqaalihii oo dhan nagu soo hoyanaya ma garatay oo waayo sababtoo ah ma taqaanaa meeshii waxa laga furayaa meherado badan ma garanaysaa meheradaha waxa soo galo dhan inagu nagu soo yeena ma garatay shaqo abuur baaxad weyn bay ka qaadanaysaa markii shaqo abuur la dhaha qaasatan dhalinyarta ahaan markii la dhaha waxa jirta macaan ku raadaay system lagu shaqaaleysiin karaa jira system loogu dalxiisyaal kale oo imaad karo loogu faa'iideyn karaa jira waxa noo soo galay income fara badan baa noo soo galay qofka markii dalxiis u imaado income ka imaaday qofba mishaar looga dhigi karayaa dawladda maxaan ku raadaa lagu caawin karaa bulshada lagu caawin karaa any kind of maxaan ku raadaaye process oo noo imaada kareen faa'iido oo qabanaysa hadday noqoto maxaan ku raadaaye maalgashin dhalinyartu inay maalgashadaan chance fara badan ay ka helaan waxyaalo fara badan baa jira idin nooga imaanaya taa qasaaro ma jirto sabooyinka ceelka xaraar oo kale caan weeyaan ceel xaar iyo xaraar meelasha xilliga geela ceelka la geeyo oo loo baahdo inuu helo isbedel biyo macnaha maxay ahaydey oo uu ka maarmo sida milix oo kale ceelasha caanka ee sida bulaalo kale waxa ku yaala qabri dahar
ceelxaar ceel la yidhaahdo iyo xaraar labada ceel ku yaalaan ceel hore oo baabuur isagana karoodka la dhihi jiro isagana caanaha ugu jira marka ceelal rigyo motoore lagaga cabana way jiraan oo waaweyn iyagu banki qoraxay waa jiraa waa caanid waa meeshii magaalada caanka macnaha qubba qoraxay kulle geed eega garawaan la yidhahdaa qabsado hawd bay noqotay geed garawaan la yidhahdaa qabsado ma banaana oo dhulkii daartii iyo maba garanaysid oo geed garawaan la yidhahdaa oo eegan ku soo biiray waddanka yaa qabsado xidhayba laakiin waa jirtaa waxaan isleeyahay deegaanka meelahaas dalxiiska iyo waxaan ku dhahay haddii laga dhiso laga hirgeliyo soo ku fiicnayn ma jirto khaasatan aagga webiga Shabeelle gobolka Shabeelle oo maro haddana maxaan ku dhahay asa qurba joog ahaan qorshaha waa inuu jirtaa inaan webiga maxaan ku dhahay aan laga faa'iideysto oo wacyigelin badan sameeyno haddana goobaha maxaan ku dhahay noocyo ma jiro inaan dhisno dhulka maamulka magaalada kala wareegna aan dhisno qurba joog ahaan ayaa jirta qoraxay oo kale waa maalintii shidaalkii waad garanaysaa sidoo kale waxaa ku yaala meelo badan oo laga faa'iideysan karo sida banki qoraxay oo kale toga in kastuu biyo badan ay maraan in laga faa'iideysan karo goobaha waxaan ka aqaanaa meesha la yidhaahdo biyo kulul oo kale gobolka city bay ku taallaa marka waxaa qofku markuu xanuunsanayo kale ayaa la geeyaa meesha biyaha waa la galayaa marka la galo qofkii wuu caafimaadayaa oo aad iyo aad waxa weeye mataqaanaa meel aduu dhakhtar camal oo kale ah marka meelahaas oo kale in mataqaanaa dadka qurba joogta inay maal gashadaan aad iyo aad waa wax aad iyo aad u fiican waxa leeyahay inay maal gashadaan baa loo baahan yahay horta fariintan diray waxay tahay nin walba oo dhalinyarta oo deegaanka kamid ah qaasatan anigu waxaan ka soo jeedaa horta gobolka Liban maxaan ku raadaaday wuxuu leeyahay environmental fara badan oo looga faa'iideysan karo maxaan ku raadaaday xagga dhaqanka dalxiiska waxa kamid ah maxaan ku raadaaday duurjoogta camaleta malabka shinnida kamid ah wabiyada beeraha kamid ah waxyaalo fara badan bay leedahay iyada la tix raacayo in maxaan ku raadaaday isku dubnaado dhalinyaro shirkado fara badan la sameeysta dhulka la maalgashada maxaan ku raadaaday environmental fara badan la sameeysta oo dhalinyarta loogu faa'iideeyay baan dheelaa in la sameeyo kullee dhul ballaaran oo maxay ahayd dhul ballaaran oo diin oo maxay ahayd wax ka qabad iyo wax ka qabsasho u baahan man leena oo aad iyo aad ballaaran dadkeediina waa iska dul wareegayaanoo marka cidii wax ku beerin karta ee wax soo kordhin karta hoos u egtaan leh guday isbedel ballaaran baa ka socda maamulka maxaan ku dhahay maamulka magaalada waxay dhiseen beerta cagaaran la yiraahdo oo maxaan ku dhahay ayagu maalgeliyeen oo lagu dalxiisto dhalinyaradu tagto goobo kalena hadda maxaan ku dhahay way socdaan dhismahooda guday waxay caan ku tahay webiga Shabeelle marka guday waxay caan ku tahay webigaas qudaar badan oo beeran iyo dadkii wax fahmay oo hadda maxaan ku dhahay dhulka beeranayo isbedelka la jaan qaadaya ayaa aad bay u fiican tahay ahmiyadeeda dhalinyartu aad baa loo fiican yahay shaqo abuur badan waa laga heli dhalinyartu aad iyo aad bay u fiican tahay waxa weeyaan waxaa kaloo jirta erar biyo kulul bay leedahay oo dalxiis bay leedahay oo derbi balbal bay leedahay oo dhul loo dalxiisay leedahay goobaha kale dalxiiska deegaankeena goobaha dalxiiska eega waa la maal gashan karaa eega qorraxay oo kale waa la maal gashan karaa oo waxay leedahay bam bay leedahay oo jugliya daris bay leedahay loo dalxiiso oo geel oo caano jaban leh roobku uu helayo dhagax buur oo waxaan ku dhahay bullaale geelu ka cabayaa oo dalxiis bay iyada lafteedu leedahay oo dhulku barwaaqaysan yahay webigu kulli yaxaas waa ku jira yaxaaskana kulli waa qasab noolaha lagu talgalay meeshiisa ku noolaado laakiin malay badan baa ka buuxa malayga hadda lafteeda waxa weeye goobaha waxaa jira hadda hoteello ka furan oo maxaan ku dhahay dhalinyarada ka faa'iideysteen oo waxaan ku dhahay la hirgeliyey oo hadda ka jira dhalinyarada ka ganacsadaan mise nooc malay baa laga helaa wallaahi malay nooc kasta laga helin ku jira malayga hadda kulli aanay waxaan ku dhahay ma soo tiragoobin ma soo daraasin laakiin nooc kasta oo malay ku jira webiga khayraad badan baa ka buuxa aad baan hadda looga faa'iideystaa khayraadkaas way yaraanaysaa deegaanka waxay hadda qorshaha maxaan ku dhahay maamul magaalo ahaan iyo xukuumaddaba isla qaateen in la sameeyo goobo xanaano oo zoo oo dalxiis ah oo hoteello ah khaasatan aagga uu maxaan ku dhahay webiyadu maraan in laga dhiso markaas qurba joog ahaan laftanada qorshaha way nagu jirtaa
1 2 3 way u jirtaa inaan aaga hoteelo ka dhisno goobo xayawaano zoo ah dhalinyaradu markaa shaqo abuur bay helayaan oo waxa weeye halkaas shaqo abuur baa ka bilaabanaya baaqa guud ee u dariyo qurba joogta deegaanka u dhalatay goob kasta joogaan waxaan u baaqayaa dalkooda inay soo maalgashadaan dalka dib loogu soo noqdo wax kastoo maxaan ku dhahay awal jiray haddii ay cabsi jirtay haddii maxaan ku dhahay laga cabsan jiray deegaanka hadda waa nabad meel kasta in dalka la maalgashado oo lacagta meelaha kale la geynayo ee Nairobi iyo meelaha kale lagu maalgashanayo in deegaanka la keeno oo qurba joogta deegaanka ku soo xarooto ayaan u baaqayaa si guud fariintayda fariin waxaan u dirayaa qurba joogta inay dhulkooda in si ay ugu soo dalxiisaan intay waddanka shisheeye ku dalxiisi lahaayeen waddankoodii ay dhisaan ay u soo dalxiisaan waxaan leeyahay dalkiina maalgashada ninkii dalka u dhasho kusoo dhawaan ku leeyahay dalku waqtigii hore iyo iminka isbedelo badan baa dhacay isbedelada waddanku intuu kastuu nabad yahay qof walba uu soo geli karo oo dalka u dhasho marka nin walba waxaan leeyahay waddankiisa daa maalgashado ninkii dalka u dhashay inuu dalkiisa maalgashado oo kusoo dhawaado oo ma garanaysaa dawaka sidee oo dhalinyartii ay shaqo abuur ay u yeelato oo dhalinyaradooda ay ma garanaysaa maskaxda iyo hab dhaqanka iyo maskaxda iyo si walba ay u dhismaan qurba joogta waxaan dirayaa mataqaanaa dalku uu barwaaqaysan yahay waa la maalgashan karaa wax soo saar buu leeyahay hadda goobo loo dalxiisuu leeyahay tan kale dhagaxle eed sheegaysoo kale tan aan kuu sheegaya qoraxay iyo bullaale iyo meel ceelasha iyo beeraha iyo ceelasha kala duwan dhulkuu barwaaqaysan karo waa la maalgashan karaa waddankiina imaanta waxaan leeyahay dee si fiican u maalgashada fariintaan u diray waxa weeye fariin mataqaanaa aad iyo aad u qaaliya waxa weeye mataqaanaa inay maalgashadaan dadka mataqaanaa dalxiisayaasha iyo dadka mataqaanaa qurba joogta iyo dawladduba inay mataqaanaa maalgashato waa mid loo baahan yahay fariintan diray waxa weeyaan horta qurba joogta naftinkeeda kaliya maxaan ku raadaay fariin uma dirayo nin kastoo maxaan ku raadaay hantida haysta maxaan ku raadaay shirkadaha haysta waxaan dhihi lahaa maxaan ku raadaay shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarta waxyaalaha loogu faa'iideysan karana waxa weeyaan in dhalinyarta shaqo abuur loogu sameeyo waxaa kaloo jirta shirkado fara badan oo waxaa jirta loo tilmaami karay iyadoo maxaan ku raadaay loogu faa'iideynaya dhalinyarta shirkadihii loogu faa'iideynaya naftinkooda intaas ninka qurba joog kaliya maaha ninka hanti haysta ee maxaan ku raadaay ama shirkado isku duuban inay dhulkooda faa'iido ka soo saaraan baan dhihi lahaa in fariintaas u diri lahaa dhanka hoteelada dalxiiska maxaan ku raadaay shimbiraha iyo shinnada iyo waxyaalo fara badan baa jira deegaan ku jira loogu faa'iideyn lahaa baan leeyahay loogu faa'iideey